xaaladda magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa si fiican oo habsami leh ay u socdaan wax waliba kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay rabshado ka dhaceen shacabka magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay sida habsamada leh ay shaqooyinkii iyo xaaladihii caadiga ahaa ee magaaladu dib ugu soo noqdeen waxaana ay bulshada kale iyo guud ahaan bulshada gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorame ku booriyeen in si wada jir ah loo ilaashado nabadgelyada gacan mid ahna lagu wada qabto وحمد محمد حسين horta alxamdulillah horta ilaahay ma had iskale waan arkaysiinta magaalada amnigeega marka koobaad aagba faraxsana maanta imtixaankii waan soo galnay magaalada amnigeegana uu sugan yahay marka alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Najmo Xuseen xiisadaan u galnay tarbiyay ahayd si nabadaan u galnay alxamdulillah magaalada iyaduna waa nabad maanta nabad bandhukay ku marina nabad imtixaanadeedka ku soo galnay alxamdulillah rabbil caalamiin xabad ma dhacayso soo meydadkayga dhaawacyada hospitaalada yaalan horta waxa la intii dhimatina Allah naxariisto inta dhaawacana waxa la ilaahay idin boogadhayo gobolka Awdal saaka noloshiiba dib loo furay bakaaradii baa la furay bacmushirkii baa bilaabmay dhulkii iyo adduunyada ogeydeen baa safaynay wixii naga dhintayna Allah u naxariisto waxaan salaamayaa dhammaan bulshada Boorame waxaan leeyahay magaaladu waa okay way furan tahay wayna shaqaynaysaa sideedii hore xaaladdu ku soo noqotay waxaan leeyahay dhalinyarta iskooladiini taga ku noqda iskooladiini waxbarashadiini ku noqda ganacsatada waxaan leeyahay iniga waxaan ugu calan meheradaha furo oo meheradaha xidhan waxa dhibaatada waxa keenay waa meheradaha xidhan waxaan leeyahay meheradaha hal la furo dadku ha shaqaystaan meheradii waa kuwa furo way shaqaynayaan magaaladu way shaqaynaysaa amnigu saxsan yahay waxaan leeyahay wadanka waa nabad الرحمن الرحيم hadda waaniga meeradeeda furaya magaaladuna xaaladeedu waa sax sidii hore iyo si ka fiicanba intii naga dhimatayna Allah u naxariisto inta bogtay dhaawacana Allah caafiyo marlii horta waxa weeyaan Allah subhanahu maxamed horta dhib way dhacday si kasta ha u dhacdo laakiin maanta ahaan ganacsigii waa soo noqday jidadkii waa furan yihiin wax kastaba maanta sidiisii hore u socdaa wax halka looga bedelmo ma laha marleyna waxaan yaro dardaarnaysiin lahaa dawladdu inay wax kasta oo fiirsata qurux badan oo dhib kasta intii dhicin loo sii fiirsado intaasina tala ahaan weji